السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada khiyaarta sharafta iyo qiimaha leh waa mar kale iyo barnaamijkiisa aad iga barateen oo aan mar walba idinkugu soo gudbiyo waxyaabaha halista ah ee aan isticmaalno maalin walba. maanta barnaamijkayga waxaan kusoo qaadanayaa beer xanuunka, guud ahaan beer xanuunka, calaamadaha lagu garto beer xanuunka iyo calaamadaha lagu garto beerka inuu shaqadiisa joojiyay iyo waxyaabaha aad kaga hortagi karto haddii ay dhibaatadaas oo kale ay kula soo gudboonaato ama aad taqaano qof ay dhibaatada hayso saad ula qaybsato. ta koowaad, beer xanuunka maxaa lagu gartaa? beer xanuunka waxaa lagu gartaa beer xanuunka guud ahaan waxaa lagu gartaa daal fara badan. qofka haddii uu dareemayo daal fara badan asagoo maaragtay subaxii soo kacay adoon howl iyo waxba qabanin, haddii ay daal fara badan ay uu ku hayo, waxaa laga yaabaa horta daalka fara badan waxyaabo badan ayaa qofka bani aadanka u keeni kara, laakiin maanta waxaan idinla qaybsanayaa ama focuska uu yahay waa beer xanuunka. beer xanuunka keliya ayaan maaragtay ka hadlaynaa maanta, laakiin mar walba walaalayaal waxaan idinkaga digaya inaad dhakhtarkiina la xiriirtaan. dhibaato kasta oo idin haysa mar walba dhakhtarkiina la xiriira. calaamadaha lagu kaso waa daal fara badan, daal iyo cuntada oo ku dhadhameynin ama cuntadii aadan cuni karin, lalabo fara badan, iyo qofkii oo caato iska noqda oo weydka uu ka dhaco, maqaarkaaga ama jirkaaga oo cuncuna, qofkii oo isxoqaya mar walba cuncun fara badan aad isku aragto. ta kale, beerka haddii uu joojiyo shaqadiisa ama shaqadii loogu talagalay uuna qabanaynin oo boqolkiiba boqol waxaa la rabaa beerka inuu shaqeeyo, laakiin haddii uu 50% ama meeshii loogu talagalay 100% inuu shaqeeyo uu 50% u shaqeynayo, maxaa lagu garan karaa? waxaa lagu garan karaa lugaha oo ku barara iyo caloosha oo ku bararta. caloosha oo aad ku bararta iyo lugaha oo ku barara iyo cuncunkii fara badnaa oo aad cuncunka kugu sii fara badanaya. indhaha meesha jaala, meesha cad oo jaala ku noqota ama yellow ku noqota. sidii aan hore soo sheegay oo kale, daal fara badan, lalabo fara badan, xataa matag ayaa laga yaabaa inuu qofka iskama tago mar walba, sabab la-aan uu iskama tago lalabo darteeda. marka beer xanuunka badanaa haddii uu gaaro stageka ugu dambeeya, meesha ugu dambeysa oo qofku maaragtay beerkiisa uu joojiyo completely oo shaqada oo dhan uu joojiyo, waxaa lagu gartaa qofka oo dhiig ma taga. calaamadaha aan soo sheegay oo dhan, luga barar iyo calooshii oo bararta, matag, lalabo, indhaha oo jaalo noqda, qofkii oo maaragtay caatooba iyo dhiig qofka uma tago, waa marka ugu dambeysa, meesha ugu dambeysa oo beerka uu shaqada uu joojiyo completely, shaqo oo dhan uu shaqada loogu talagalay uuna qabanaynin. qofka dhiig ayuu xataa ma tagaa, caloosha bararta, lugaha barara, matag, dhiig. marka waxaan rabaa marka inaad la qaybsado waxyaabaha lagaga hortegi karo beer xanuunka. beerka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay, waayo beerka shaqo badan ayuu qabtaa. videoyaalkii hore aan soo duubay ayaan kaga hadlay waxyaabo badan oo beerka uu qabto. waa muhiim, aad iyo aad u muhiim u yahay. marka beerka waxaa jira viruses ama maaragtay cudurada beerka ku dhaco oo waxaa kamid ah hepatitis, wax la dhaho hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C ayaa jira. marka haddii aad rabto cudurada beerka maaragtay inay kaa yaraadaan ama ka hortagto, hepatitis A and B and C waa la iska talaalaa, talaal baa jira, waa iska talaali kartaa. hepatitis A badanaa waxaa laga qaadaa biyaha wasaqda ah ama cuntada wasaqda ah. gacmahaaga mar walba iska dhaq, mar walba maaragtay bacteriadan iyo waxaan iska nadiifi. biyaha haddii aad maaragtay biyaha ka shakaysan tahay, biyo waxaa jira oo xataa iska karkari biyaha, ama gacmahaagana mar walba iska dhaq. qudaarta si fiican u dhaq, adigu nadaafad badan ku dadaal. hepatitis A-ga wasaqda ayaa laga qaadaa, waxyaabaha wasaqda leh. B and C-na waa la iska kala qaadaa. qofka haddii hepatitis B ama hepatitis C uu leeyahay, qofka kale wuu qaadsiin karaa, sida AIDS-ka oo kale ayaa la iskaga qaadaa hepatitis B and C. marka always maaragtay waxaa fiican in qofka maaragtay iska baaro haddii uu isku arko calaamadahan beer xanuunkaas, sida indhaha oo jaalo noqda, jirkii oo jaalo noqda iyo waxyaabahan kale aan la qaybsaday. haddii aad isku aragtaan, please dhakhtarkaaga la xiriir
oo maaragtay halagaa qaado dhiig iyo waxaas si loo ogaado waxna waxay yihiin so oo looga taxdiro. waxa kale oo aad kaga taxdiri kartaa adoo isticmaala liinta iyo biyaha iyo huruudda iyo sanjabiisha. sanjabiil, liin iyo huruud haddii saddexdaas aad maalin walba aad cabto beerkaaga beer caafimaad leh ayuu noqonayaa. beerka badanaa waxa dila waa maaragtay sunta ama waxyaabaha qaarkood ee bani aadamku isticmaalo. marka haddii aad caafimaadkaaga ku dadaasho oo cunto fiican aad cunto oo aad maaragtay haddii maaragtay aad cabto liin iyo huruud iyo sanjabiil aad maalin walba cabto waxa laga wasaqdii way ka dhaqmaysaa ama suntii way ka dhaqmaysaa. marka ku dadaala walaalayaal, dhakhtarkiina la xiriira mar walba. calaamadahaas haddaad isku aragto aan soo sheegay hepatitis-ka A B C-gana maaragtay iska baar, waa laga yaabaa inuu waxyaabahaas oo kale kuu keeno. intaas ayadana qaybsanayaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.